haatanna shirkadda la yidhaahdo Uber ayaa magaalada London waxa ay ka bilaabi doontaa tijaabada taksiga aan darawalka lahayn ee iskii iswada. Abkan ayaa haddaba waxa uu la shaqayn doonaa shirkadda ama garaadka macmalka ee Ingiriiska ee Wayve loo yaqaano, taasi oo horeba u tijaabisay teknolojiyadani gaar ahaanna ka hirgelisay wadooyinka magaalada London. laakiin ilaa iyo hadda qof ayaa ku fadhiya kursiga darawalka si uu u ilaaliyo badqabka qofka rakaabka ah. tifaftiraha teknolojiyadda ee BBC-da Sio Kaliman ayaa warbixintan ka diyaariyey. dhowr toddobaad ka hor ayaannu gaari ku soo marnay London oo dhan innagoo isticmaalayna tiknolojiyadda darawalnimada, laakiin keligay maanan ahayn. waxaannu ku soconnaa gaari hadda iskaxaynaya oo maraya waddooyinka bartamaha London. waxa uu aqoonsanayaa seedka uu u baahan yahay inuu galo. waxa uu ka fogaanayaa khataraha, gaar ahaanna baaskiilla badan, baabuur baarkin ku jirta, dhisme ka socda waddooyinka iyo dhammaanba gaadiidka caadiga ee magaalada oo na ciriirinaya. waxaa jiro darawal badbaado oo fadhiya kursiga darawalka. magaciisu waa George, laakiin waxba ma samaynayo. waxaannu ku jirnaa hab madax bannaan. taasina waxa ay sidoo kale ka dhigan tahay in dhammaan go'aannada lagu gaarayo gaariga wakhtiga dhabta. waxaa kaloo jira badhan casaan ah oo weyn oo la taabto xagga hore haddii ay wax qaldamaan oo uu mar kastaahi la wareegi karo. laga bilaabo sannadka soo socda waxa aad filan kartaa inaad aragto gawaari badan oo sidan oo kale ah oo waddooyinka magaalada ku socdo iyadoo aan cidina aanay la socon. dowladda UK ayaa sheegtay inay soo kordhinayso qorshayaal lagu oggolaanayo tijaabinta tagsiga aan darawalka wadin iyo adeegsiga baska u eg sannadka soo socda ee 2026. Uber waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay samayso qorshahaasi. waxaan u bilaabi karnaa sida ugu dhaqsiyaha badan marka waaxda sharciyeynta deegaanka noo oggolaato inaan samayno. waxaan helnay 18 saaxiib oo caalami ah oo hadda nagala shaqaynaya madax bannaanida. waxaa jira tiro ka mid ah shirkadahaasi oo jeclaan lahaa in ay ka bilaabaan tagsiga Uberka UK. tagaasida robodka ayaa horey waxa ay ugu sugnaayeen waddooyinka qaar ka mida magaalooyinka Maraykanka, dalka Imaaraadka, Shiinaha iyo Singapore. daraasadaha qaar ayaa soo jeedinaya in gawaaridaasi bilaa darawalka ah ay ka shil yar yihiin kuwa bini'aadamku wado, laakiin sidoo kale waxaa jirta tiro cillada ah oo sarraysa oo ah halka ay ku shaqaynayaan mid ka mida tagaasida robodka ee San Francisco. waxaa kaloo jira walaac ku saabsan saamaynta bulsho ee tiknolojiyadda, gaar ahaana shaqooyinka. waxaa runtii na qusaysa in ka badan 1 milyan oo qof oo ku shaqaysa darawalnimada dalka UK. waa inaan si dheer uga fikirnaa dhibaatooyinka bulshada ee iman doona haddii lagu beddelo tiknolojiyadda tooska ah. tani waxa ay keeni kartaa arrimo waaweyn oo dhanka bulshada ah. arrimahaasi waaweyn oo ku saabsan dhanka shaqooyinka waxaan u baahannahay inaan aad uga taxadarno ka hor inta aan oggolaan. magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Maraykanka, Uberada darawal la'aanta ahi waxay shaqayn karaan 20 saacadood maalintiiba 7 maalmood ee toddobaadkii. qiimaha shirkadduna waa mid isku mid ah. Tesla waxa uu ku dhow yahay inuu halkaasi ka bilaabo adeeg uu kula tartamayo. Uber waxa ay sheegtay inay rajaynayso in ay si toosa u siiso macaamiisha UK marka ay tijaabada halkani ka bilaabato sannadka soo socda. su-aashu waxay tahay in Ingiriisku diyaar u yahay inuu galo hawshaas. sahan la sameeyey sannadkii hore ayaa soo jeedinaya in 37% oo dadka annaga oo kale ah ay dareemayaan ammaan darro gawaarida darawal la'aanta ah.